waxaan jeclaa anigu inaan si aad u kooban anoo xirfadeeda isticmaalaya 3 qodob inaan ka gaarsiiyo midka ugu horeeya oo aan isleeyahay in la iloobo maaha waa deegaan ama environment hobyo indhahan joogmay shalay iyo maanta inta aan joognay wadadana ilaa wisil ayaan galab ka socday wadadana meelo badan ayaa bacaad ku gooyay ama ku sigan yahay inuu gooyo oo baabuurtii four-wheel drive-ka ahayd ku adag wadadii la dhisay dhibkaas weyn laga soo maray ayaa bacaad dabayshu saa u wato u gooynaya wadadii waa halis weyn arrinta environment-ka adduunka dhanna ka ah waddankeennana ka ah weliba magaaladan gaar ahaan kasii ah marka dhir nooc walbaa jiro qaar biyaha badda ku baxaa jira oo badda lafteeda lagu beeri karo marka in arrintaa jadwalka dowladdu ku darsato oo wasiir environment waa jira waana fadhiyaa waana ku kalsoonahay xilal ka waaweyn buu soo qabtay marka environment-ga in horta lagu darsado jadwalka oo marba qaybtii laga qaban kara laga qabto gaar ahaan magaaladan hadda dhibka weyna ka yaalla wax laga qabto taas waa qodobka koowaad qodobka labaad oo rabay inaan taabto waxa weeye deegaanka federaalka laga jeclayn ayuu ka mid ahaa ilaa marnuu waa ognahay gobollada Soomaaliya qaarna federaalka ay aad u bushgareynayeen qaarna waa ka goos haysteen oo ma jeclayn federaalku haddii sida xun loo isticmaalana waa dhibaato dalka dhaawac weyn gaarsiin kara haddii si wanaagsan loo isticmaalana waa mid ka suurtageliya caawa in hawshan iyo madashan la isugu yimaado oo dekadii dadku ay dhistaan 9 bilyan laga hadlayo in dadka deegaankan federaal ahaan isugu yimid in ay samaystaan marka deegaanku inuu federaalka taageero oo federaalka niyeysto oo federaalka aqbalo oo ka shaqeeyo federaal dalkiisa iyo gobolkiisana dhisanaya dawladdiisana ogol lana shaqeeya kana mid ah ugana dambeeyo waxyaabaha masiiriga ah ee ku saabsan ama xiriir dibadeed ha noqoto ama lacagta ha noqoto ama difaaca ha noqoto waajibaadka dastuurku sheegayo ee federaalku leeyahay in loo daayo iyaga talo lagu biiriyo wixii kale gobolku leeyahayna laga shaqeeyo oo macnaha sameynaysa ka shaqaale caasimada haddaan la dhaafinayn u samaxay waa inay gaartaan ilmuhooda taasna waa قرب في سبحان الله الجواني المؤمن تطلب هجان كاميرا حاجة بالحوان أحمد وقوان آد أيام المحملية لذلك أقصد وسبيل سكيني دعاوة هذا الله كهذي معارض الحافظ هي إنه في الجيج المدن إن أي تقاطر نحن صغرة الموضوعية حكم يلقى قصة هذه ماشي حتى المريسي ماشي أهيد أيها هذا سوق جارسيين marka siyaasiyiintu istaago dhan waa lagu hambalyeynaya inay la garab istaagaan la wada qabsho midda yaroo ka dardaarmaya waxay tahay doorasha soo socota waan ogahay rag badan waxaa wada iyo gabdho badan kursigaaga xagso ama kursi cusub qabso ama adigu kusoo fiir anigu iskama reebayo waa dad badan marka waxaan rabaa laakiin xamaasadaan aysan ku ekaanin marka doorashada socota sababtoo lama wada faray deegaankaaga maanta haddii lagaa doorto ama shalay lagaa doortay weliba deegaankaaga kaama harin doono hadduu horumar gaaraan waa deegaankaaga hadduu dib u dhac sameeyaan waa deegaankaaga marka intaas aan ugu darsan maalinta keliya iyo kursiga keliya aan ugu xisaabin ee dalku dalkeenu yahay oo horumarkiisa iyo wanaaggiisu ay naga dhexeeyaan dekadda sida loo sheegay maaha keliya inay tahay hanti galmudug oo sida gobolku sheegayna in la wadaago horta ay tahay galmudug ahaan laakiin hanti qaran in loo arko qaranka dhana ka faa'iidaysanaya weliba dekedani macno badan ma samaynayso haddaan dalalka dariska helaa xataa ka faa'iidayso marka ina sida u aragno waad mahadsantihiin intaasaan kasoo gudubnay wasalaamu calaykum